soo dhowaada asxaabtayda qiimaha badanow waa mar kale iyo kanaalkiinni nolol wanaag iyo arrimo ku saabsan nolosheenna oo aan inagula wadaago si ay idinku noqoto talo iyo dhiirigelin ama haddaad hore u ogeedna kugu noqoto xasuusin. muuqaalkani aad daawanayso wuxuu isagu ku tilmaami doonaa qodobo yar oo kooban oo ku saabsan haddiiba aad tahay maamulo ganacsi ama aad jeceshahay inaad noqoto maamulo isku filan oo si xirfadaysan ama brofessionala uga soo baxa booskiisa maamulanimo. waa in laga helaa qodobadan. 1. naftaada ku kalsoonow. kalsoonida in badan ayaa laga hadlaa, sidoo kale waa furaha shay kasta oo ay guli ku dheehan tahay. ma u baahna qeexitaan badan, keliyaate waa in aad kalsooni wax ku maamushaa. marka aynu joogno maamulidda, shay kastana aad kalsooni ku waajahdaa. qodobkeenna labaad, dadka la tasho. tashiga bini'aadamku waa mid loo baahan yahay oo aan laga maarmin. sidoo kale talooyinka bini'aadamka qaar waxay noqdaan kuwa ku anfacaya, qaarna waxay noqonayaan kuwa aan ku anfacayn. saas daraaddeed waxaa kula habboon inaad wixii aad u aragto inay ku anfacayaan aad qaadato, wixii kalena aad iskaga tagto. ma maqashay qisadii balqiis ama balqiiso, boqoraddii reer saba, markii uu nebi sulaymaan calayhi salaam u soo diray fariin, kadibna ay la tashatay dadkeedii iyo wasiiradeedii. dadkii boqorrada ama nebiyada ahaa ayaa dadka la tashanayay. adiga markaa maxaa kuu diiday inaad dhaxasho dhaqankan soo jireenka ah? qodobka saddexaad, go'aanka adiga lahow. si kasta oo aad mar kasta dadka ula tashato, maahan inaad u oggolaato go'aankaaga cid kale. waxaan filayaa inaad taqaano sida uu noqdo dareenkaagu markaad adigu wax iska hadlayso iyo markaay cid kale wax ka hadlayso. qodobka afaraad, mar kasta la soco xaaladaha shaqaalahaaga ama xaaladda shaqaalahaaga. shaqaaluhu waa kuwa mar kasta ka shaqeeya waxna ka qabta shirkadda ama dukaankaaga. aadna doonayso inaad kor ugu qaaddo shirkaddaada ama dukaankaaga. saas daraaddeed waa in mar kasta aad la socodsiisaa shaqaalahaaga waxa kula soo gudboonaaday, haba ahaatee wanaag ama dhibaato. kuna dadaal inaad la wadaagto wixii ay meheradda dani ugu jirto ee ay tahay inaad la wadaagto. maxaa yeelay mar kastoo shaqaaluhu og yahay waxa soo socda wuu kasii taxadaraa ama la faguraa isagoo la wadaagaya feedbacka maamulihiisa. laakiin haddii uu noqdo shaqaale aan ogeyn meel la maraayo, ganacsiguna wuxuu ku sii socdaa hoog madow. saas daraaddeed qodobkani waa muhiim. intaasaan jeclaystay inaan idinku soo koobo, ee fadlan isku day inaad wixii ra'yigaaga ku saabsan aad nagula wadaagto kommentiga. sabskraibna aad noo saarto haddii aad nagu cusub tahay. waxaynu ku kala tegaynaa nabadgeliyo intaynu iskugu imanno fiideogan xiga. assalaamu calaykum.